لما أنا أصحابته علي جمعة مبارك وهبين جمعة مبارك دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبوان حبيب وإذن الله من لبعض كسروا هذا يوتيوب كأبوان حبيب channel. صادوا جيدين بارتا إن معلومة دورة waxaan naga kala go'day ama naga kala go'day qisadii taxanaheeda jacaylkeeda xanuunka badnayd si walba ay haataba alxamdulillah maanta soo noqonay waxaan hubaa dad badan oo aniga markay arkaan inay ugu farxi doonaan sidoo kale aan ku farxi doono soo noqodkooda saasay tahay qisadii xaqii nabi noo sii socon doonta qisadu waxay noo marisay maxamed iyo nasriin markii ay kulmeen nasriin warka xasiisay maxamed ku tiri maxamed salaama anagoo turjumayna ama aan ka hadlayno ama ku turjumayna oraahiyada maxamed ku oran lahaa nasriin ama si uu ku yiri ayaa waxaan ku soo koobnay maasadan lugeedka ka faa'iideyso hadday niyadaadu keentay cakiya naxdin baad ku soortay hankaygii ku naawilayay haddaad nabad seexanayso ama saniya samii ku joogto aniga nolosha ay ciishay nasiibkaygaa xumaaday anfaaciga uma niyoodo hurdana nabdigaa ka dhaartay naftayduna rijay lahayde ma dhaantid kuwaa nacbaysto karayso nitaaqadayda nasiibkaygaan qabaaye adoon damqi nabaaradayda nolosha ku wiirsanaynin ha soo noqon ayaan dambeeto la noolow kaad u xiisto niyeyso inaan ku daayay weliba nabaday walaalo maxamed markaan maansada ku soo koobnay ama uu hadallada ku yiri nasriin aad u meesha tixgelin wax tixgelina nasriin ma siiseen bas halkii ay kaga dhaqaaqday nasriin waxayna damacnayd sidii ugu rajaysan nasiib wacan iyo khayr waxa ku jira maxamed samir baan ku rajaynayaa anigana ii soo ducee dawayna ka nasriin xagii ka baxday maxamed uu qanacay markaa wuxuu gartay inay talo fariis ka baxday gartay maxamed uu iska noqday iskaga maxamed jaamacadii uu ka baxay jaamacadii uu dhigin jiray nasriin uu ka baxay wuxuu baxay jaamacad Itoobiya oo saan hore ku soo sheegay qisadan bilowgeedii nasriin iyo maxamed waxay ku noolaayeen Muqdisho maxamed wuxuu baxay jaamacad dibadda oo Itoobiya deeto uu ka soo noqday 5 sano kadib maxamed uu ka soo noqday jaamacadii wuxuu soo bartay fakaltiga loo yaqaan fakaltiga caafimaadka ayuu soo bartay maxamed haddaan astaamihiisa wax ka sheego wuxuu ahaa wiil aad u furfuran bulshaawi ah dadka dhex geli kara wuxuu ahaa wiil aad u dabiicad wanaagsan oo dad cidna isku dhici karin oo oran karin maanta qof isku dhacaya maxamed wuxuu ahaa wiil calool jilicsan beer jilicsan dadka u naxariista maxamed Itoobiya ka soo noqday wuxuu helay shaqo caafimaad oo dhakhtar ayuu helay markuu dhakhtarkii helay maxamed uu shaqo tagay deeto dhakhtarkii uu indoor ka shaqeynay markuu ka shaqeynay waxa la keenay dhakhtarka gabadh bila tola bila ehla cid u naxaysa aanay jirin wax daryeelaya aanu jirin cid soo booqanaysa aanay jirin saas waxay ahaataba maxamed uu dul qaadan way gabadhaas saas inay dhakhtarka taalo gabadhan mid kaaga daran waxa ka maqan kalideeda bidix ka maqan kalideeda bidix ayaa ka maqan gabadha gabadhan hadaad eegto waa gabadh dadka iska da'weynta aad kan aanu sida aweynin islaanta aan gaarin laakiin wajigooda ama qaabkooda aad ka dareemayso inay da' gaareen oo waxba qabsan karin si walba ahaataba maxamed uu dul qaadan waayay wuxuu yiri gabadh noocani in dhakhtarka taalo oo wax qalada maxamed wuxuu sameeyay inuu gabadhii iyadoo suuxsan kalidu uu bixiyo kalidu saaro kalidu bixda maxamed baa u saaray gabadhii deeto gabadhii loo geli kalidii gabadhii kacday dhaqaaqday waxay bila maqnaatay dhakhtarkii ku soo noqotay markii dareentay alxamdulillah caafimaad inay tahay markay soo noqotay waxa ka dalbatay dhakhaatiirtii in wiilkii kalida loo u saaray loo tuso dhakhaatiirtii waxa ku tiri nagama foga wiilkii kalida ku saaray
inagama foga waana wiil dhakhtara oo inala jooga oo loo yeedhay Maxamed